magacayga waa injineer Axmed Mukhtaar Sheekh Eege oo ah qoraaga website-ka caanka ah ogadenews.com iyo qoraaga hay'adda samafalka website-ka Quman International Development Association qidatoday.com 24 September waxaa magaalada London ka dhacay banaanbax ballaaran oo looga soo horjeedo ururada nabadiidka sida Gimbot 7 Onaag Ubbo Al-Qoshash iyo wixii la halmaala banaanbaxaas ayaa waxaa looga yimid dhammaan wadanka UK sida Birmingham, Leicester, Leeds iyo meelo kale looga yimid waxaana ka soo qayb galay dad aad u fara badan oo soo qayb galay waana banaanbixi ugu weynaa ama ugu ballaarnaa ee dad intaas leeg ay ka soo qayb galaan ilaa 200 ruux ayaa loo qiyaasay dad ka soo qayb galay dadkaas oo aad u xanaaqsana kana xumaa banaanbaxay ee dhibaatooyinka ay wadaan ururada nabadiidka marka waxaanu chance u yeelanay inaanu soo duubno banaanbixi oo dhameystiran halkaas oo aad kala kulmaysiin dadkii banaanbaxa hadalladii ay ku dhawaaqayeen waraysiyaday ay bixiyeen iyo shucuurtoodii daawasho wanaagsan waad mahadsantihiin دولة هوات
waxaanu taageersannahay dawladayada deegaanka hililka shanaad waxaanu ka soo horjeednaa waxa la wixii nabadda ka soo horjeeda waxaanu taageersannahay waxa la wixii nabadda taageersan dawladdana waxaanu ka codsanaynaa horumarka ay sameeyeen inay noo sii wadaan ummadda iskuulo noogu dhisaan dhakhaatiir loo dhiso shaqaalaha la sameeyo horumarka sidaa hadda loo wado loo sii wado annaguna garabkiina aanu taagannahay waanu idin taageersannahay waxa la wixii nabadda ka soo horjeeda waanu ka soo horjeednaa wabillahi tawfiiq maxamed sheekh cabdullaahi dacabka ku soo dhaweeyna hadana kala hadhin rag iyo dumar dhalinyaro nin walba u kala hadhin waxaan taageersannahay dawladda Itoobiya guud ahaan gaar ahaan federaalka nin walba meesha uu ku horumarka ku gaaray iyo waxa ka socda wanaaga farxadda nin walba wax la qarin kara ma aha wixii ka soo horjeedna wixii ka soo horjeedaan diidanahay annaga horumarka ma rabnaa nolol baan rabnaa waxaasoo kale oo dhan baan daleecaynaynaa sidaasaan maanta ugu soo baxnay waxaan u mahadcelinaynaa miidiyaha universal waxaan u mahadcelinaynaa maamulkiisa waxaan u mahadcelinaynaa shariifka waxaan leenahay si fiican noola shaqaysteen ugu dambeyntii waxaanu rabnaa inaanu warays ka qaadno injineer axmed oon xalay seexanin habeen hore seexanin aad ugu shaqeeya hawlahan kicinta iyo abaabulka axmed kusoo dhawow maxaad dhihi lahayd waa mahadsan tahay waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhammaan dadweynaha sharafta leh ee DDSI ee ka soo qayb galay banaanbaxan ballaaran ee looga soo horjeedo ururada nabadiidka Gimbot anoog ubo iyo wixii la halmaalo waxaan u sheegaynaa dadweynaha inaan maartay ka soo horjeedno gruubyada argagixisada waxaanu mar walba taageersannahay nidaamka federalismka ee Itoobiya maanta ay ku guuleysatay kuna horumartay adduunyada ay maartay Itoobiya maanta ay ka mid tahay wadamada dhaqaalahoodu oo xawliga ku socdo Itoobiya waxay ku noolaan kartaa multi ethnic federalism oo shaqeeyay marka waxaan kaloo u mahadnaqayaa dhammaan dadweynaha sharafta leh ee ka soo qayb galay banaanbaxan oo looga kala yimid Birmingham Leicester iyo ibn xataa Holland baa ka soo qayb gashay marka waxaanu leenahay guuleysta DDSI ha guuleysato dhammaantii waa maasantiin okay reer Holland weeye reer Holland ha imaadaan waxaan soo dhawaada maxaad ilaahay waxaan leeyahay waxaan aad u soo dhaweynayaa banaanbaxan waxaan aad u salaamayaa dhammaan madaxweynaha dawladayada iyo maamulkayga aad u salaamayaa waxaan u sheegaynaa shacabku waa idin raacsan yahay waxayna idinkaga mahadcelinayaan hawsha iyo shaqada aad u haysaan waxaan idin leenahay ilaahay miraad nuur waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka hay'adda Quman International Development Association maanta waxaanu ka soo qayb galnay mudaharaadkii ballaarnaa ee looga soo horjeeday Gimbot 7 iyo adag iyo maxaan ku dhahayay wax allaala wixii diidan horumarka iyo nabadgelyada iyo maxaan ku dhahayay dimuqraadiyadnimada waxa weeye nimanka ku fikiraya shalayto dargigii kaliya taliska ahaa ee gumeystigii mingisti iyo xayl salaasa wafjiisi waxay wateen kama yeelayno Itoobiya maanta horumar bay ku talaabsatay waxay weeye waa wadamada dhaqaalahooda hore soo kacay ku jirta waxaana waxay ku yimaadeen federalismka ay ku yimaadeen waxa weeyaan
waan ka diidnay dadkaas doonaya inay Itoobiya mugdigii madooba ee laga soo baxay ay dib ugu celiyaan waxaan leenahay oo kale dadka aaminsan fikirka ubannimada ama khaldan in laga baxay oo maanta loo baxay xagga horumarka iyo nabadgelyada iyo isku tashiga leeyahay oo kale maxaan ku dhahaayay looma joojinayo Itoobiya waa federalism kan taageersanahay waxaan mahad celinayaa EBRDF oo ah kuwii mugdiga ka saaray dadkan Itoobiyaanimadana ku soo celiyay federalismna ka dhigay nidaamkaasaan taageersanahay waxaanu annagu ka midnahay dawladihii iyo qoomiyadihii gumaysigu uu sida xun u isticmaalay xuquuqdoodana ku helay EBRDF waxaan leeyahay ha jirto waxaan leeyahay dawlad deegaanku ha jiro xisbiga shacabka dimuqraadiga Soomaaliya ha jiro madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ha noolaado ha jiro waxaan leeyahay xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya noolaada waanu idinku tashanaynaa waanu isku tashay iyo go'aan kala qaadanaynaa waxaanu nahay haddaanu dal joogna ama dibad joogna isku mid baan nahay mowqifka iyo fikirkaanu ka qaadanayna waa hal mid mana doonayna inaan dib dambe ugu noqono Itoobiya maxaan ku dhahay way maalintii madoobeyd iyo calankii madoobaa waanu ka baxnay waanu diidnay maantana ma dhacayso Itoobiya way isbedeshay waa federalismka waxaanu ku leenahay ayaanu qaadanaynaa cidii wax ka badan oo ku raadinaysa oo doonayna laba gobol bay leedahay anuguna qoomiyadda labaad ee Itoobiya ugu gobol weyn baan ahay haddaan nahay dawlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya ee media marka aad iyo aad baan idin salaamayaa ka soo qaybgalayaasha mudaharaadka weyn ee maanta dhacay waxa weeye waxaan leeyahay noolaada jira oo jooga aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa shalay ma aha waa maanta shalay mingistay ahayd dhiigyacab bay ahayd daraad xayle salaasiya mukanankii dhalay bay ahayd geel dayurada lagu rusheeyo carruurna abeel lala dhaco wakhtigeedii wuu dhammaaday wakhtigii wada noolaashaha lagu jiraa candhuuftiinna dibu liqa dulmigii wuu dhammaaday annagu haddaannu nahay dawlad deegaanka Soomaalida waannu isku duubannahay waxaannu isugu duubannahay inaannu ilaashanno dimuqraadiyadda iyo sheerkayaga qaybtayada inaannu ilaashanno cid aannu ka aqbalaynaa in la dumiyo waxaan ma jirto ma aqbalayno waxaan ku soo dhaweynaya Axmed Weli Xaaji Maxamed oo eray dhihi doona Axmed Weli bismillaah waa salaamantiin dhammaan dadweynaha meesha isugu yimid ee ka kala yimid wadamada Yurub iyo Ingiriiska waxa aan rabnaa inaanu cadayno oo ku cabiro maaragtay aragtidanada wadankan Itoobiya wax badan baanu isla soo maray waxaanu soo maray Miliilix iyo Xayle Salaasi iyo Mingiste dhiiganaga in badan isku daatay hadda waxaanu haysanaa federaal waxaanu nahay dawlad federaal ah kililkanaga ayaanu haysanaa ayaanu xukunaa waxbaanu baranaa maxay ahayd horumar baanu haysanaa wixii naga dhimana cid noo tilmaami maysa anaga raasanayna saas darteed dad yawankaas u qamaamahaya central power maxay ahayd fariin baan u diraynaa cagaha dhulka hala dhigo arrinkaas suurtagalna ma noqon waxaan ku soo dhaweynayaa injineer Bashiir oo ka yimid Holland diyaarad soo fuulay iyo Cabdiraage Xaaji Barre oo xaray seexanin diyaarada socday soo abaabulay oo wakiil ka ah shacab weynaha dawlad deegaanka Itoobiya ee ku nool Holland ku soo dhaw injineer aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka qaadanno banaanbaxan lagaga soo horjeedo Gimbood 7 iyo Unug ay dadweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ka soo jeeda ay ku muujinayaan ka soo horjeedka iyo waxa ay wadaan dhammaantiin annaguna waxaanu jeclaanay inaan kala qayb qaadanno una nibad safar dheer ugu soo galnay 700 oo mayl arrintan farxadan aan kula qayb qaadanno marka waxaan leenahay dhammaantiin soo iskuma raacsanin in Gimbood 7 iyo Unug aynu ka soo wada horjeedno dhammaanteen isku raacsantiin dhammaantiin isku raacsantiin codkii qaar baan maqale marka waxaan leenahay Gimbood 7 iyo wixii la halmaama ee la socda down baan leenahay dhulka ha galaan baan leenahay waxaan aad iyo aad waxa weyn ugu hambalyeynaa hor socodka dawladda federaalka Itoobiya iyo dhammaan qoomiyadaha iskaashada ee walaalaha ah ee horumarkooda iyo dantooda ka tashanaya waxaan leeyahay mar labaad wixii ka soo horjeedo dhan dhulka hoos galaan dhammaantiin codkiina hoos buu kor u qaado hoos ha u dhacaan mar saddexaad dhammaantiin waxaan leeyahay guul iyo gobonnimo
waad u jeedaan baalkiifun دباحي ما لها ودباحي ما لها ورادة كم جوا كم أنا كم جوا لا هذا نيو كاسة waad u jeedaan london lagama ogola gibbon 7 lagama ogola dhargi lagama ogola gibbon 7 lagama ogola onaag terrorist weeye mataqaana jawaahir maxamed burhaan niga waa terrorist hado gacanta lagu soo dhigo Ethiopia weeyaan yes ayakan الرحمن الرحيم waxaan u maxnay xalabada la gubayo loo sheego dadka waxaan gubaynaa shuf waxaan gubaynaa calanka dargiga waxaan gubaynaa gobol subar ma gubaynaa gubto waxaan gubaynaa calanka gobol subar waxaan gubaynaa oraag waxaan gubaynaa gobol subar gub kor baan u qaadaynaa suuqaarka kor u qaadaynaa hado waxaanu gubaynaa kuriya sagaal gimbood sabad in yar baan u sheegayaa ummadda dhegaysta jawaahir waxaan u sheegayaa gimbood sabad kuriya 977 dawladda Itoobiya markay shirtay 500 oo baarlamana oo amxaare keliyata iyo 200 oo maaliyadda oo cid kale oo amxaare aynu ku jirin 130 jaran oo cid kale ku jirin ayaanu joognaa annagu Addis Ababa ayaanu maalinta taagnay waxaan joognaa 130 jaran oo Itoobiyana oo amxaare kaliya waxaan joognay 500 baa maalinta fadhiday amxaare qureetay ahaayeen 70 ambassador baa joogay amxaare qureetay ahaayeen jawaahir waxaan kuu sheegaynaa oraba maalintaas ka noolay iskuul ma lahayn reer ma lahayn gaaja haysay education ma lahayn marka gimbeed waxaan sheegaynaa jawaahirow 7,700 oo baarlamaanka Itoobiya jaranna iyo wasaaradda maaliyadda iyo ambassador gimbood sabad 1977 markuu shirka lagu yartayo inbuu ku jiray bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa liin maxamed shide ka soo jeeda gobolka shabeelle degmada eelale ama godayga calo waa idin salaamay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta meeshan waxaa u imaanay mudaharaad weyn oo abaabulan oo aad iyo aad looga soo shaqeeyey si qurux badanna u dhacay maxay ahaydtoy DDSI oo dhanna way yimaadeen maasha allah sidaa rabnay oo nabad abuu noogu dhacay mudaharaadkaas oo maxay ahaydtoy aan ku mudaharaadaynay gimbood 7 down aan dhahaynay upper down aan dhahaynay maxaan ku leeyahay nabadiyadoo dhan aan down dhahaynay marka maxay ahayd maasha Allah si wanaagsan buu noogu dhacay guul waxaan u dhiibayaa Muna Cabdullaahi
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أنا waxaan ka taaganahay gobolka Nogob fiiq ayaan ka imaaday wadankaygan support gareynaya waana imid maanta banaanbaxa ilaahay si khayr leh ilaaha noogu dhameeyo. magacaygu waa Cabdiraxmaan Gilgil gobolka Qoraxay gaar ahaan magaalada degmada Marsin waxaan halkan isku soo dhaano ka imid gobol West Midland waxaan halkan isku nimadan maanta taageero u muujino dawladda deegaanka Soomaalida oo ugu horeeyo madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar iyo dhabaan kabinetka iyo new booliska marka waxaan aad u taageersanahay dimuqraadiyadda mar rabna anagu Itoobiyadii hore Itoobiyada cusub ayaan soo dhaweynaynaa dimuqraadiyadda ayaan taageersanahay Itoobiyada sintay inaan anu xuquuqdayda helo qof kasta horumarkaan helo biyahan helo wadooyinka helo marka aad iyo aad habeen iyo dharaan waxaan taageersanahay Itoobiyada cusub waxaan leenahay ha jirto ha waarto dimuqraadiyaddu wixii dimuqraadiyadda soo horjeedna anaguna waan diidanahay aad iyo aad السلام عليكم magacaygu waa Fartuun Nimcaan day qaybdiid oo waxaan ka soo horjeedaa Soomaalida Itoobiya dhalinyarada DDS baan nahay aad iyo aad baan u jecelnahay wadankayga aad baan ugu faraxsanahay waxaan ka soo jeedaa Jarar gobolka magaalada Dhagaxbuur wadankayga waan imaadaa markaste aad baan ugu faraxsanahay nabadiisa aad baan u jecelahay ma doonayna wixii hore inay soo noqoto waxaan doonaa hore inay u sii socoto saan insha Allah aan maalin maanta ahayn wadankeena aan dib ugu soo noqono u degno marka waana deega doonaa waana u soo soconaa wana hormaray aad iyo aad baan u jecelnahay madaxweynaha salaamayna dadka dhammaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كهذا مجا جالية ويست ميلان إيه برمنغهام aad ayaan ugu farxsanahay maanta inaan ka soo qayb galno mudaharaadkan ballaaran ee lagu karbaashayo kooxaha nabadiidka ah oo ay ka mid tahay 7 gabood onek ubo al-shabaab iyo dhammaan nabadiid oo dhan cid allaale iyo waxa ka soo horjeeda nabadgelyada iyo horumarka iyo federaalismka dawladda Itoobiya ayaana ku mudaharaadeenaa ayaana ku muujinaynaa shucuurteena inaan ka soo horjeedno inaanan ogolayn waxaanu taageersanahay dimuqraadiyadda federaalka nabadgelyada iyo horumarka wadankeena ka hirgalay baanu taageersanahay waana maalintii koowaad oo dhammaan jaaliyadda labada jaaliyadood West Midland iyo London ay isku yimaadaan ayagoo shucuurtooda si wada jira u muujinaya oo ay ka soo horjeedaan nabadiidka iyo nololdiidka dawladda Itoobiya ka soo horjeeda hadda aad ayaan macnaha ugu hambalyeynaya dhammaan ka soo qaybgalayaasha mudaharaadkan waxa kale oo hambalyeynaya dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ugu sareeyo madaxweynaha oo ku xigo madaxa xisbiga dhammaantiin waa salaamantiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق هو محمد حسن دولة وحان كسو جيدا جالية وست ميدلان برمنغهام وحان هالكان نمدين عن عمبارينا كو نبدا إيه دولة ديمقراطية دا ودن كيني كجير تورتاغن وحان لنا هاي آد بانو كسو هرشيدنا waxa ka soo horjeeda horumarka iyo dimuqraadiyadda ninkii ceel ii qoday umbaan anigu taageeraya ninkii ceelkayga bir ku gooyay ma taageerayo Gimbood 7 ha dhacdo onog ha dhacdo wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق وحال إلى حسن علي يوسف وحان كسعودة جالية يوكي قيبتا مالتي قبل يوكشا مقالة شفيل waxaanu halkan u nimid inaan barnaamij sameeyno aanu kaga soo horjeedno dhargiga iyo dib u socodka iyo gumaysiga nabadiidka oo dhan baanu kaga soo horjeednaa waxaanu diidanahay wax alla wixii nagu soo celinaya dhargiga ayaanu diidanahay waxaanu doonaynaa horumarka iyo nabadgelyada iyo midnimada Itoobiya ayaanu doonaynaa Itoobiya ha noolaato Itoobiya ha noolaato gumaysigu ha dhaco dhargigu ha dhaco dib u socodku ha dhaco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ka soo jeedaa oo ka nimid jaaliyadda Soomaalida Itoobiya ee Leeds waxaanu u nimid halkan inaanu muujino codkanaga oo aanu ku taageerayno dastuurka federaalka Itoobiya dawladda federaalka Itoobiya dawladdan oo ah dawladda kaliya ee aanu dareennay horumar nabadgelyo inaanu magaranaysa dalkanaga aan xor ku noolaan karno waxaanu taageersannahay dawladda federaalka inay guulaysato waxaanu ka soo horjeednaa Gimbood 7 waxaan ka soo horjeednaa Onag waxaan ka soo horjeednaa nabadiidka
ma rabno cid ma garanaysaa qashqashta federaalka etoobiya dastuurkan dadku ay ku midaysan yihiin horumar baannu hellay waannu ka soo horjeednaa mucaaradkan raba inay burburiyaan oo nabadgelyo xumo ku abuuraan etoobiya bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waxaa la dhahaa foosiye khaliif maanta halkan waxaa ka dhacay banaanbax weyn oo jaaliyadda DDSI ee iskugu timid ayaga oo ka kala yimid dhammaan gobollada UK ay ka kooban yihiin Birmingham, Sheffield, maartay ii sheegeen Leicester, Manchester, dhammaan UK oo dhan waxa shucuur aad iyo aad u ballaaran ayaa maanta nahaysa shucuurta oo ah aan ka soo horjeedno Gombood 7 aan ka soo horjeedno iyo maartay isha kaliga taliyihii dhargigii iyo dhammaan maartay xagjirayaasha ee nabaddiidka ah aan ka soo horjeedno calankaas federalishinka ee na kulmiyay qoomiyadaha oo dhan ayaan anagu aaminsannahay waxaan leenahay dawladdanada Itoobiya dhexe ha noolaato waxaan ahay magacayga ayaan baa la yiraahdaa ayaan amsana la yiraahdaa waxaana ka socdaa reer Birmingham baan ahay gabdhaha jaaliyadda Birmingham gudoomiyahooda aan ahay halkan waxaan horta uga hambalyeynaya dawladayada dawlad deegaanka Soomaaliyeed oo ugu horeeyay madaxweynaha Cabdi Maxamuud Cumar iyo wasiirada iyo saraakiisha iyo ciidamada New Police iyo shacabka naga inta halkan aan uga mahad celinaya gaar ahaan halkan maanta mudaharaad baan halkan ku haynay aanu dhargigii iyo dadka uska galaha ee awalkii hore wadanka maaragtay masquulaan u sameynay oo rag baa nadiifiyay wadankii marka inaanu dib aanu masquulihii maaragtay banaanka ay amxaarada ku xeeraysiin dib loogu soo celiyo hadda waqtigan xaadirka diyaar ma nihiin safka horaanu waxaanu dagaalka ka galaynaa hadii Allah yiraahdo aniga waxaan ahay ilmihii waalidkii lagu dilay ee dhargigu maaragtay wadanka ka kiciyay haddana maanta shucuubtaydu caadi ma aha waxaan diyaar u ahay inaan safka hore galo dagaalka hadii Allah yiraahdo marka waxaan idin sheegayaa shucuubtaydu caadi ma inta ka badan ma hadli karo ayga waa Xaliimo Shube ku nool magaalada London maanta waxaan halkan isugu nimid Gombood 7 ayaan ka soo horjeednaa iyo gumaysigii hore ee aabayaasha iyo awooyadaasheeda cunay aniga aabahay way dileen curadkii wala aabahay iyo curadkii ku xigeen way dileen marka marna ma soo dhaweynayo waan ka soo horjeednaa waan dagaal baan ka xignaa waxaan samaynaynaa tuutaan New Police kan xidhanaynaa waan ka soo horjeedsanaynaa marka waxaan leeyahay waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha iyaga qaaliga mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo kamareedkiisa iyo ciidamada New Police ee sida gaarka u tababaran halyeeyadanada iyo federaalka Itoobiya oo dhan waxaan leeyahay guuleysta horaa loo soconayaa cadawgu ha dhaco ninkii xumaan wada ama wadankayaga dadkayaga raba ha dhaco waan ka soo horjeednaa wax alla wixii wadankayaga ku jeeda ha dhacaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقاعي وعبد الله فارح سولدات وكتسن جالية بامينغهام ويست ميدلاندز UK أنا هذا الكيو كوبي هاي Gombood داون Gombood 7 داون نين أسمارا كنول وحبوا مقوانا دولة وطنك إثيوبيا قول بانو رجينا إن شاء الله بالله الله كريم قميسي iyo matan dib u socod dooni mayno Gombood 7 down Gombood 7 down nabadid down السلام عليكم waxaan salaamayaa jahliyada maanta reer UK ee meeshan isugu timid dhammaan waan salaamayaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad bay ii shucuur gelinayaan ta kale waxaan salaamayaa madaxweynaha Cabdi Maxamuud Cumar dawlad deegaanka Soomaalida ayaan salaamayaa waxaan salaamayaa nimanka New Police ee halyeeyada ayaan salaamayaa waxaan salaamayaa in allayaala inta taageersan ee gacan siinaysaan salaamayaa dhargidu ha dhacdo wixii nabadiid ah oo dhan ha dhacan ubadu ha dhacdo aad iyo aad baan idin salaamayaa dhamaantiin waxaan u nimid mudaharaad meeshan inaan shucuurteena ku muujino cid walbo nabadiid ah marka anoo hadalkayga soo koobaayo Gombood down madaxweynaha ha noolaado assalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim anoo ku hadlaya magaca jaaliyadda dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ee ku nool magaalada London waxaan halkan horta marka koowaad hambaliyo uga dirayaa dawladda federaalka Itoobiya iyo dawlad deegaanka waxa horta wax walba mudan in la xuso waxaan wadada waxay maanta dareensiin horta dalinay leeyihiin taana waxa keenaysa horta waa duruuftii la soo maray iyo waxay maanta arkeen dadku
waayo shalay markay dhargidu joogeen cid waliba way ka warhaysaa nin awraajo ah baa gobol kasta keligii mushaarka qaadan jiray laakiin maanta qof walba inuu meesha leeyahay mushaarkiisa noloshiisa mustaqbalkiisa iyo future-kiisa waxaan mar walbaba diidaynaa annaga inay nagu soo noqdaan horta nimankii berigii hore halka nin isticmaali jiray marnaba yeeli mayno dagaalna waanu ka xignaa waana la diriiri doonnaa hadday yimaadaan waxaanu taageeraynaa mar kasta dawladda deegaankayaga iyo dawladda federaalka Itoobiya iyo wax kastoo nabadda Itoobiya khuseeya wassalaamu calaykum waraxmaani raxiim magacayga waa Cumar Maxmed Qase waxaan joogana magaalada London Highbarcona ana hadalkaygu waa kooban yahay waxaan ku soo koobayaa waxaan taageersanahay dhammaan nabadgelyada iyo horumarka ka jira dalka Itoobiya Itoobiyada cusub baan taageersanahay Itoobiya maanta waxay ka mid tahay wadamada East dunida saddexaad wadamada ugu horeeya ay ka mid tahay xag dhaqaale xag waxbarasho iyo wax walbaba marka waxaan ka soo horjeednaa dhammaan wixii fadqallo ku wada oo ay kow ka yihiin Gimbood 7 ha dhacdaan leenahay dhammaan waxaan taageeraynaa horumarka ka jiro khaasatan deegaanka aan ka soo jeedna ee Soomaalida deegaanka Itoobiya ayaan taageersanahay waxbarashada iyo jaamacadaha waxaan awal hore hal qof baa haysan jiray wadanka marka hadda shaqada way dhamaatay waxaan ka soo jeedaa dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaan taageersanahay dawladda Itoobiya wax alla wixii ka soo horjeedo annagana uu naga soo horjeedaa qarinjid Gimbood 7 dhammaantood waxaan leenahay dhacaan nabaddiidoo dhan ma rabno nabad baa wax noo ah nabad baan doonaynaa nin alla ninkii nabadda jecelin baana soo dhawaynaynaa Itoobiyana dhammaanteed ha israacdo hana noolaato meel ay joogtaba bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa xamdi halkan waxaan salaan uga diranayaa reer Itoobiya oo dhan shacabka Itoobiya oo dhan baan salaamayaa waxaan ka soo horjeednaa oo maanta shucuurteeda iyadoo aad iyo aad u kacsan macaaradka maanta dhibaatada iyo foolxumada nala deedeeyay dadka xasuuqa iyo maxay bilaqada deedeeyay dadka nabad iyo horumarka Itoobiya ka soo horjeednaa dhargii iyo shaqo xumadiisa oo kale lagu soo celin ma doonayno nabad baan ku seexanaa nabad baan ku soo toosnaa nabaddu ha jirto ha joogto gumaysigu ha dhaco wixii nala doonayo maxay Itoobiya burburkeedii foolniyo qaxooti nala rabo ha dhacaan Itoobiya ha israacdo Itoobiya ha noolaato Itoobiya waa mid EPRDF ha noolaato EPRDF assalaamu calaykum inaan muujino annagoo taageerayna shucuubta Itoobiya kilka shanaad gaar ahaan kana soo horjeedna ayaaman ka damba dhibaatooyinka ka socdo Itoobiya oo ay wadaan niman nabaddiid isku bahaystay inay nabadda khalkhalgeliyaan ku celiyaan Itoobiya meeshii shalay ay ka timid haddaan dib u yar laabto Itoobiya xaggee ka timid 100 sano ayaa lagu dul noolaa shucuubtaas xuquuqdooda aysan helin waxay maanta heleen xuquuq aysan haysan dawladaha qaar ee Yurub magaaladan aan joogo waa London jaamacadaha laguma dhigta lacag la'aan free ma aha haddaan soo qaato jaamacadda Jigjiga 15,000 baa dhigata 15,000 free bay ku dhigtaan waxay isu dul saaran cuntadii buugti macallimiinta oo free taa baa la diidan yahay ninka taa diidanow waa kula dagaalaynaa waxba kaad reeban mayno Itoobiya maanta meesha ay joogto waxaa loo soo maray dhibaato aad u dheer dhimasho burbur dhaawac barakac ayaa loo soo maray ninka raba inuu ku celiyo tii shalay laga soo baxay oo calan maanta lagu gumaadi jiray dalka meelaha ka tagtaagayow waa kula dagaalamaynaa waxba kaa reeban mayno meel kasta goob kasta goor kasta waa kaaga dabagelaynaa waxaannu leennahay shucuubta la barakiciyey waxaa mas'uuliyaddeeda qaadaya cidda barakicisay maxkamadna waa la keeni waxayna mudan doonaan waxa alla wixii waajibkee Itoobiya israaceeda ha noolaada wada jirkeeda ha noolaada gaar ahaan waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha kililka shanaad
mudan cabdi maxamuud cumar dhallinyarada new booliska oo nabadgelyada haaya ayaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa etoobiya wadajirkeeda ha noolaada waxaan aad u garab taagannahay odayaashii tegey meesha la yidhaahda maqalle aad iyo aad baad u mahadsantihiin madaxdu ha noolaato madaxdu ha noolaato dhammaan waxaan leeyahay nabadgelyadu waa qaali wixii nabadda ka soo horjeedana ha dhaceen baan leenahay ururada dib u socodka ha dhaceen salaamu calaykum madaxdoo dhan waa salaamaya madaxweynaha ugu horreeya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وحنا هاي ورث فارع ديل وحن كاي متشالية عن كمدة جالية برمهان هذا الكائن لبضي ما بالله باهنا بقى وين هذا الكرنت أم لقى شاو أنا وما دونا إنه وإحنا دمية ما ندونا إنه وناق إيه هرمرك إيه وناق ماشي كتيرة نجهر يماده جنبات سبنا مربنا هرانا وسعنا يدبنا وسعنا قن ما إنه وحي كهر يماده هرمرك إيه وناقنا ونلا دجالمنا حيل سلاسة إيه من جست على مديسي دتك وطاو وانو إلا دجالمنا مدحوينها أيان سلامية مدحنا أيان سلامية ودنك أيان سلامية هرمرك أيان سلامية إثيوبيا هنولاتو فدرالكو هنولادو ودنولانشو هنولادين دولة deegaanka Soomaaliya iyo dawladda federaalkaba annagoo maanta u soo safarnay safar dheer arrintan inaan ka qayb galno aad muhiimka u ah waxaan halkan ka hoosta ka xariiqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba in waddankanaga maanta horumarka iyo wanaagga uu gaaray uusan ku gaarayn foolxumadii shalay laga yimid mid aan raalli ka nahayna ma aha aad iyo aad ayaan u taageeraynaa dawladdanada wax walba ka soo horjeedana waan ka soo horjeednaa wixii ma aragtay waxa daba wareegaya wixii shalay ay aabayaashana ka soo dagaalameen ka soo halgameen anagu raalli kama nihin dib loogu noqdo rafaadna diyaar kale uma nihin marka halkan boqolkiiba boqol waxaan ka leenahay dhargiga iyo wixii la socda iyo wixii la midaba nu laba kaclaynayno halgankii nabadda iyo horumarka 20 iyo dhowr sano aanu baagaas ka bilownay waxaanu isugu soo baxnay maanta sidii in badan ay sheegtay in aanu ka dhiidhino oo ka xumaano dadka raba inay dib noogu celiyaan dhibaatadii iyo xasuuqii ay qoomiyado fara badan oo Itoobiya ay soo mareen dawlad deegaanku ha u daraado markaas waa wax aanan dib u aqbali doonin inaanu ku noqonno xaaladihii aanu la soo marnay maamuladii Hayle Salaase iyo dhargigii isabaa in maanta uu ni soo celiyo dhimashaanu ka wada xignaa sidaan u dhannahay haddaannu dawlad deegaankiinnahay maanta waxaannu haysannaa dawlad haykalladeedii oo dhan u dhan yihiin waxaannu haysannaa ciidan geesiyaal ah oo liyu booliis la yidhaaho waxaannu haysannaa dhallinyaro waxbaratay oo iskuulkii ay ka bilaabeen dugsi quraanka jaamacad kaga baxa isla magaaladaas nin nabad diiday inuu maanta uu garan waayo xuquuqda uu dastuurka uu siiyey Itoobiya waxa isu haya maanta waxa weeyaan waa dastuurka qodobka 39 bay taagan tahay haddii uu qinijid soo noqdo haddii uu soo noqdo maxaan ku dhahay wixii oo la oran jiray isapaagu uu soo noqdo waanu ka xunnahay mid kalena waan idin sheegay waxa ayna maanta ayna garanaynin xuquuqdoodu meesha uu taagan tahay waxa ay dib noogu celinayaan 1880 kiiba dib noogu celinayaan waqti aan laba joogin waxa maanta lagu joogaa annagu dadka dawlad deegaanka haddaanu nahay taariikhdeeda waan naqaanaa dad xoog lagu qabsaday ma nihin ingiriis baanu nidhi kuma raacayno halkaasaanu dhignay waxay ku taallaa shabeelle ku taallaa goda agteeday ku taallaa kalli baa la yidhaa ninkii yaqaana maalinkaa waxaanu doorannay inaannu dad Itoobiyana aanu noqonno oonu la xuquuq noqonno sababtaas ayaannu u aqbalnay qodobka 39aad inaannu maalinka Itoobiya diiday inay wada joogto inaan anaguna bannaanka warno maanta waxaannu ku wada joognaa waa dastuurka dadyoso geeska Afrika iyada ugu xoog badan wadamada Afrika ama koobay tahay ama waa labo wax la burburin karayna ma adduunna kama aqbalayo
kama dhalan karta meeshan daacish kama dhalan karto kama dhalan karta alqushaash kama dhalan karto ubba dambe kama dhalan karta qinijid ma soo noqon karo waa waxaan soo noqon karin isabaa ma soo noqon karo ano Axmed Yuusuf Carab waxaanu halkan aan maanta la isugu yimid waad aragtaan inta dad aad u fara badan baa isugu yimid ujeedada ugu weyn waxa weeye rabitaanka dawlad deegaanka DDSI oo ah kan hadda jira nimankan la leeyahay axmaarada iyo oromada shacab ahaan shacabkooda wanaagsan waa kuwan raba federaalka weeye kuwa aan federaalka rabin runtii waxa weeye waxaan rabnaa inay dib u eegaan wixii ay soo mareen wixii la soo maray way dhamaatay wax dambe Ingiriis baan anoo ka diidnay iyagaan ka diidnay kuwa soo socdaan ka diidaynaa waanu isku filannahay Itoobiya waxaan nahay dad qoomiyadda labaad weeye dalku dhulku waa ka labaad qoomiyaduna waa ka saddexaad isquursigii waa dhamaaday haddii wax la wada qaybsanayo wanaagga miska ay imanayaan waan soo dhaweynaynaa laakiin arrintii hore way dhamaataan laahay wassalaamu calaykum waxaan salaamayaa madaxda Itoobiya federaalka iyo kuwa dawlad deegaanka oo dhan assalaamu calaykum mahad celinaya taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo maanta isku soo wada baxay Highburg London dhammaantood ay ka wada yimaadeen gobolada gaar ahaan magaalo madaxda labaad magaalo madaxda labaad ee dalka UK Birmingham Sheffield Leeds Leicester Birmingham Cardiff marka dhammaantood aan u mahad celinayaa taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya sida wanaagsan ay maanta banaanbax ay uga soo qayb qaateen waxaan kaloo halkan mahad celin u dirayaa guddiga qabanqaabinta ku hawlanaa inuu maanta banaanbaxan quruxda badan uu dhaco waan ugu mahad celinayaa waxaan kaloo halkan ugu mahad celinayaa jaaliyadda waqooyi America oo iyagana halka wacdaro wanaagsan ka dhigay aad baan ugu mahad celinayaa maantana waxa wadamada Scandinavian kanada Copenhagen ayagana waan u mahad celinayaa taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo isku wada duuban oo ku wada nool dhammaan daafaha dunida oo hal wada ah oo mataqaana hadafkoodiina ay ka turjumayaan in nidaamka maanta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo dalka guud ahaan dalka Itoobiya ay haystaan mataqaana uu hirgalay kooxaha yaryar ee mataqaana dibadaha jooga ee ka soo horjeeda sida Gimbood 7 iyo unagyada kala mataqaana ee nabadiidka ah inagoo mataqaana isku wada duuban jaaliyadda UK waxaan maanta halkan isku soo baxnay inaan cambaarayno waxaanu leenahay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya EPRDF ha guuleystaan Gimbood 7 ha dhaco aad baan ugu hambaleynayaa guddiga qabanqaabada ee mudaharaadkan labada toddobaad iyo inta ka badan socday waxaa kaloo farxad ku hambaleynayaa oo aan shucuurteeda maanta la soo koobi karin sidii wanaagsanayd ee farxadda lahayd ee dhiirigelinta lahayd ee geesinimo lahayd ee aanu nafteenna iyo wakhtigeenna ugu soo horno inaan ka soo qayb galno mudaharaadkan aan ku muujinayno shucuurteenna aanu kaga soo horjeedno kooxaha nabadiidka sida 7 Gimbood Oneg Ubo al-shabaab iyo dhammaan nabadiidka oo dhan ka soo horjeeda dalkeena Itoobiya waxaan mar labaad jeclaanahay in halkan uga hambaliyo xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo horumar la taabo karo ka keenay waddankeennii iyo dalkeennii oo maanta meesha aan maraynayna gaarsiiyey waxaan kaloo jeclaanahay in u hambaliyo madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ah aabihii horseedka nabadda iyo barwaaqada waxaan kaloo jeclaanahay in hambaliyo EPRDF iyo TPLF EPRF guud la isku dhaho oo keenay dimuqraadiyadda maanta Itoobiya ay ku naaloonayso iyo horumarka ku gaartay ee qoomiyad kastaaba ay xuquuqdeedii u ogolaatay meesha laga saaray caburiskii iyo nidaamkii ahaa central government laga saaray qoomiyad walba ay xaq u yeelatay inay ismaamusho ayadu ay iskeeda isu maamusho waxaanu leeyahay EPRDF hambalyo xisbiga shacabka dimuqraadiga Soomaalida hambalyo madaxweynaha hambalyo dawlad deegaanka hambalyo ciidanka nabadgelyada ciidankeena Liu Police nabadgelyada waxaan leeyahay hambalyo dhammaan dadkan nagala soo qayb gala mudaharaadka Birmingham iyo ka yimid Ingiriiska iyo UK oo dhan anigu uma imaanin ama ma doonahay inaan meeshan khudbo ama hadal dheer ka jeediyo kaliya waxaan doonahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhalinyartii hawshan isku xil saartay waqtigoodii timekooda gelisay inaan yiraahdo
marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadaalkiinnii iyo wakhtigiinnii qiimaha badnaa aad u soo hurteen in aad ku muujisaan dareenkiinna in aan ku muujinno in aan ka soo horjeedno dhergigii in aysan mar dambe ku soo laabanin dalkeenna iyo dadkeena aad baan idinka mahad celinayaa dhammaantiin waxaa kaleetoon doonaya si gooni inaan halkan uga salaamo dhammaan xisbiga shacabka dimuqraadiga soomaalida etoobiya dalka dibadba dadkii taageerayaasha waxaan ku dhahaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin gaar ahaan waxaan doonahayaa inaan salaamo madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida etoobiya mudane cabdi maxamed cumar golihiisa kabineetka wasiirada ciidamada gaarka ee new bolis salaantii halgamayaashaan idinku salaamay aabudacaa maanta oo aan ka soo qayb gallay mudaharaadkii runtii shucuurtannada aad bay u kacsan tahay aad baan ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb gallo jaaliyadda UK oon u kala harin taasoo muujinaysa in ay jaaliyaddu taageersan yihiin nidaamka cusub ee etoobiyada cusub ee federaalka ah ee ay hogaaminayeen Prime Minister Haile Dhisale iyo madaxweynaha DDSI mudane cabdi maxamed cumar marka waxaan leenahay hambalyo xisbiga EPRDF iyo xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Itoobiya oo soo hoyay guul ay qurba joogtu gaaraan heer ay gaaraan inay iyagu difaacdaan dawladooda ayna isugu soo baxaan maanta yar iyo weynba dumar iyo wiilal aysan u kala harin marka waxaan leenahay Gimbood 7 down Onag down Ethiopia EPRDF ha noolaato ra'iisul wasaaraha ha noolaado madaxweyne cabdi maxamed cumar ha noolaado federaalkana waan taageeraynaa waana difaacaynaa midnimada Ethiopia waad mahadsantahay السلام عليكم أنا أين عبد الحمد فرزون عبد الحمد waxaan ka salaamayaa dhammaan dowladda Soomaaliya Ethiopia iyo madaxweynaheena salaan qaaleen meesha gaarsiinay waxa ramita kale waxaan meesha u imid oo aniga carruurtayda u nimaanay inaan ma aragtay horumarka aan gaarnay dib looga noqonin oo hore loo socdo oo aabyaasheen iyo awooyaasheen waxay maanta ku faraxsan yihiin waxa weeyaan inay maaragtay horumarkeena aan arkaan horumarkeena inaan sii guuleyno oo sii xajino oo gacanta mid ku haysano wixii ka soo horjeedana anaga ka soo horjeedna anyway waan taageerina bismillaahi raxmaan raxiim aniga oo ah afani dhugad waxa aan halkan u nimidnay maanta waa banaanbax aanu ku diidanahay dadka dib u socodka ee taageersan unag ubo maxaan ku yiraahdaa iyo Gimbood 7 waxaan leenahay dadka raba inay nagu soo noqdaan dhergigii waanu diidnaan leenahay waxaanu taageersanahay midnimada Ethiopia oo aanu ku faraxsanahay waxaanu qaadanay federalismka waxaananu hambalyeeynaa nabadda iyo horumarka waddankeega yaala waxaan leenahay Ethiopia ha guulaysato waxaan leenahay dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ugu horeeya madaxweynaha Cabdi Maxamed Cumar iyo xisbiga Soomaalida deegaanka Soomaalida Ethiopia waxaan leenahay ha guulaystaan kamanadkiisa wasiirada gaar ahaan waxaan salaan gaar u dirayaa new booliska waxaan leenahay midnimadiina adkaysta diida dib u socod bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Saalax Faarax Mahdi guddiga qabanqaabada guddiga jaaliyadda UK xubnaha fulinta aad baan u faraxsanahay maanta ka soo qaybgalkan shirkan aan qabanqaabinaynay inta ka soo qayb gashay iyo tiradooda aad u badnaayeen farxad bay noo tahay jiritaanka jaaliyadda UK inay jirto jaaliyad jirta tahay oo adduunka u badan gudoomiyahanaga hadalka qiimihiisa yiri naftirkiisa daal yar ma yaraysan anagana maana yaraynu aad baan u dadaalnay waa farxad in aan taageerno dawladdaanada iyo deegaankaanagii iyo madaxdaanada inaan taageerno mucaaradkan ka soo horjeedsano aad bay guul nagu tahay waan ku faraxsanahay waana sii labalaabayna dadaalkaanaga uba iyo wixii lamid iyo mataqaana mucaaradkana waxaan filaynaa ladha in ka tirtirno dee maanta sida guul iyo farxad waxaan u ah hal nin oo ayaga ka mid inaan arkin oo bannaanka soo istaagay marka aad u mahadsannahay intii timid aad u mahadsan intii timidna waan mahad celinaynaa Gimbood 7 ha dhaco mucaarad oo dhan ha dhaco marka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu calaykum waan salaamayaa dhammaan DDSI meel kastay dunida ku nooshahay anigoo ah guddiga qabanqaabada waxaan leeyahay dargiga ma soo noqonayo waxba ku daalin xoolahan uu boobayo waxaan hantidan haddii uu moodayo inuu ku soo noqonayo ma ku soo noqonayo Gimbood 7 ha dhacdan le warka ma sii badinayo dargiga raxmaan raxiim aniga ku hadlaya magacayga iyo magaca jaaliyadda dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia
waxaan maanta halkan uga mahadcelinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaashii aanu halkan hawsha ka wada wadnay ayadoo hawshii maanta mudaharaadkii aanu samaynaynay oo ku salaysanaa inaanu ku muujinno in aanu kaga soo horjeedno wax alaaliya wixii lidku ah dowladdeena Itoobiya ee federaalka ku dhisan taas oo ah mid run ahaantii aan ciyaar ku imanin ruuxii taariikhda garanaya ayaa garanaya dhiig badan baa u soo daatay naf badan baa lagu soo waayay 25 sano in ay Itoobiya caalamka ka mid noqoto rag baa naftoodii u waayay waxaan leeyahay ururka EBRDF ee awalna ka bilowday TPLF aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa sababtoo ah Itoobiya heerka ay maanta taagan tahay shalay halka ay taagneed taariikhda adduunkana waa wax laga og yahay anagu ka Itoobiyaan ahaan waanu ognahay anagu haddaan tayada u soo noqdo waxaan ka mid ahay dadkii ku dulmanaa Itoobiya waagii hore markii ka hore wixii ka horeeyay EBRDF sababtoo ah awood uma aanan lahayn anigoo ah qoomiyadaha يعني dadka aad ka tirada badan kamid aha in aan afkayga iskuul ku barto in aan ismaamul gooniya helo in xuquuqdi anigu aan lahaa aan helo ma aysan jirin tiisa ahayd marka rag baa ka dhiidiyay dhiigoodii daadii naftoodii horay marka maanta waxaan halkan ku muujinaynaa in aanu anagu taageersanahay EBRDF sababtoo ah EBRDF waa Itoobiyada cusub isla markaana waa ururkii soo saaray wax alaaliya wixii xuquuq ay Itoobiya oo dhan lahayd maaha oo Soomaalida Itoobiya oo kaliya Itoobiya oo dhan xuquuqda ka mid ahayd ka maqnayd bay soo saareen waxaan taageersanahay anagu federalismka waxaan taageersanahay xisbiga talada haya ee EBRDF aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan leeyahay Itoobiya ha jirto ha joogto wax allaala iyo wixii ka soo horjeeda naf iyo maal baan u huraynaa waxa kale oo halkan ka cambaaraynayaa ururada xaq jirka ah ee shakhsiyaad dibadaha jooga ay ku shaqaysanayaan sida Gimbood 7 oo ayagu aan u ogolayn Itoobiya inay meel gaadho laakiin aan waxba yeeli kareynin waxa kale oo halkan ka cambaaraynayaa OLF oo ah onag marka la soo gaabiyo ayaguna ah dadkii isku day inay qalalaas iyo rabshado Itoobiya ka sameeyaan waxaan leeyahay shacabweynaha Itoobiya nabadda iyo wanaagga iyo horumarka aynu haysano shakhsiyaad ayagu dantooda eeganaya oo shalay dadka dhiigooda cabi jiray iyaynaan ku halaynin Itoobiya caalamka weyn ka mid noqotay waxaan aad iyo aad uga sii mahadcelinayaa halkan ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya federaalka mudane Haile Mariam Desalegn saddexdii sano u dambeeyay halka uu gaarsiiyay Itoobiya waxa kale oo aad uga bogaadinayaa halkan imaanshihii uu noogu yimid madaxweynaha dalka Mareykanka Itoobiya Barack Obama taas oo ku tusaysa Itoobiya awal hore adduunka si uga xidhxidhnayd iyo sida hadda hiigsigeedu uu yahay ee caalamka oo dhan aanu ma aragta uga midnahay aad iyo aad bad mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الرحمن الرحيم anigoo ah Farduuso Maxamuud Haybe waxaan halkan maanta isugu nimid inaan banaanbax aan maanta isugu wada nimid banaanbax qaali ah oo kaga soo horjeedo wax allaala wixii mucaarada ee wadankeena ka soo horjeeda annagu waxaanu nahay Itoobiyada cusub annagu waxaanu nahay waxaan ayidsanahay Itoobiyada cusub waxaanu ayidsanahay federalismka waxaanu nahay dawlad federaal ah Itoobiya federaal baanu nahay federaal baanu anagu ayidsanahay waxaanu ayidsanahay dawladda cusub baanu anagu ayidsanahay waxaanu taageersanahay qodobka ah 39aad qodobka 39aad ama 39ka ee Itoobiya federaalka u ah yaanu taageersanahay annagu haddaanu nahay waxaan maanta isugu nimid annagoo ah jaaliyadda Soomaalida Itoobiya ee ka soo jeeda wadanka Itoobiya oo dhan gaar ahaan maamulka Soomaalida Itoobiya annagoo ah maanta waxaan isugu nimid oo annagu nahay oo aan iidsanahay federalismka waxaanu nahay Itoobiyada cusub baanu taageersanahay federalism baanu taageersanahay wadankeennagaanu taageersanahay waxaanu taageersanahay qodobka 39aad ama 39 ruuxa sidoo ku yaqaano kaasaanu annagu taageersanahay qodobkaas oo la isku raacay oo ah federalism ninkii Itoobiya federalismka ku dhaqmo federalism baan taageersanahay waxaanu taageersanahay Itoobiyada cusub federaal baanu nahay ma doonayna hadday ka badan
iyo xeryahanagii oo xeer guryahanagii annaga alayna hantideen ku dhaqalanay in xero ciidan laga dhigto dib dambe xero ciidan laga dhigto taas ma yeelayno inta gabadheed laga soo jeedo inta gabadheed laga nooshahay inta wiil hashan naaskeeda gaara laga nool yahay waanu ka soo horjeednaa etoobiyada cusub baan taageersanahay etoobiyada cusub baanu nahay federaalisan baanu nahay federaalisankaan taageersanahay qodobka 39 baan taageersanahay ama qodobka teedilmaynkaan ku taaganahay waxaan maanta isugu soo noomi qodobkaasaanu ku taaganahay oo annagana kuseeya haddaanu nahay soomaalida etoobiya iyo etoobiyada kale oo dhan dhammaan etoobiya baa taageersan annagu waxaan doonaynaa nabad iyo waxaan doonaynaa horumar dib uma noqonayno gadaal uma noqonayno horaanu u soconaynaa saasaan jecelnahay asalaamu calaykum عن ملي سنم اللي العشية زاري ثلاثة أمد بفيد منما النبر مقدور كان بالنبري نظر كزاري يالو خلي العشين يونيفرستوتي منقروتي وهان لمات وهم نظر يتفرونو دلانسي ورهورا مملس عن بلي كنم فالنزي أرما بدرج أرما يعني ساجي سووتي أسفل لنجي هدلهم عن قبلهم إثيوبيا يقدم فان إدمانو انت قباد يقدم فدريشن of the Kabaro and Horog Yogdam Yandina Kachin was Makabaro Padama Misigano Bazimi Matachare Mitino Andina Kachin the Makabarna allowed Tachin Sit Kachin in Yazan Umbar and Kabara. Thank you very much. Number 7 القصاص هي وحي نعب مركز يوم دولة إثيوبيا وعن كسر جدا من دغالمينا جاليد بلارن بعض الناس سووا مد كسر جدا وهذا صوشيال كسر جدا دولة يورمك إثيوبيا waxay maanta buuda noo shaay waxaan idinka mahad celinayaa sida quruxda badan aynu isku soo xilqaanay waxaan codsan lahaa inaynu ismaqallo annagoo raali ah hal ismaqlo biliis una waqtigu inooga lumin mar hore halkan la yimid waqti badan baynu soo gelinay waynu ognahay ruux walba xaaladda uu ku soo kacay marka koowaad waxaan idinkaga mahad celinayaa sida xilkaasnimada leh ee wadaninimada leh ee ruux waliba isagoo cid khasbin uu isku soo xilqaamay si uu maanta halkan uga muujiyo dareenkiisa ku saabsan wadaninimada waynu ognahay wadaninimo waxay tahay wax yar oo fudud ma aha qiimo aad weyn bay leedahay ruux walba uu garanayaa qiimaha ay muwaadinimadu leedahay taas waa iga mahad celin talabaad waxaan idin fari lahaa oo idinka codsan lahaa fariin maaha iga codsi ah marka waxaan rabaa inaan idiin sheego waxaa hadli doona xubnahaas oo ku hadli doona ilaa 4 shaqo warra Itoobiyaati nama khayani jaalanna biyo khayasni jaalanna بسم الله الرحمن الرحيم بيا خياني جالنا نما خياني جالنا نتي ورا إثيوبيا دا أورومو أمارا تيغري أوراغي أنفار حرارة أننا نجالنا بيا خياني نما خيانيس نجالنا أورومو هاتاتو أمارا هاتاتو أنفار هاتاتو سداما هاتاتو هون دخينا بكتوكو تدلنا بكتوكو تجرا هاي لسلاسة مياجروني بينا أكم نقولسني بينا أكم أدخلنا رفورة دني بينا أما إرباني نما سلام تابر بعده أعرفه نما سلام تان بربناس أرجع خينتي أجرسيسنا هاجرين هاجرنا كات إثيوبيا سوتشو هاجرين إثيوبيا سوتشو دسالين الله ما مزجنا آمين الله نقول ኢትዮጵያ አገራችን ነው የኢትዮጵያ ልጆች ናችን ሁሉ ቦታ ስንሄድ ጊዜ ሁሉም የኢትዮጵያ ሰዎች በኃይል እንወዳለን ومسافة بدام منا مسجنا عند ما ورجوا هرادم فرح شرشر يدرين والد عباتك ورلير كقلوعن وكيم دعبهاي
እና ዛሬ በሰላምታ እዚህ ያሳለፍነው የምንፈልገው እኛ ለውጥ አንፈልግም። ለውጥ በፍጹም አንፈልግም። እኛ የምንፈልገው ሰላምታ ነው። እኛ የምንፈልገው መውደድ፣ አብሮ መሆን፣ አፋር፣ አዳል፣ ኦሮሞ እና ኢትዮጵያ ሁሉ ወለጋ፣ ጎጃሜ፣ ጎንደሬ ሁሉም ሳሆ አንድ ላይ ተሰብስበን አብረን በፒስ እንቀመጥ። እድሜ ደሳለኝ ሀለ ማርያም ደሳለኝ በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ። عبد عمر عمرقا هديرادو عدوقا هتشبو عبد عمر تلقى وررسني ورليدا ورليدا نسو ورليدا والد كوديو كنا سعودك إيدي هذا الشيء بحرش هذا ما ملتهين تلقى وررسني ورليدا ورليدا نسو ورليدا بسم الله الرحمن الرحيم وإن سلام دمان dadka halkaan isugu imaaday maanta barnaamijkan halkaan isugu nimaanay waxa waa salaamaha selfie በትንሽ ማማርያ ቃሎች ለአንዳንድ ነገሮች ለማነጋገር እየፈለገው ነው። ይሄን ሰላማዊ ሰልፍ ዛሬ የሚመጣችን አካል ምንድነው? ከማንም ጠላት አይደለም። በሰላማዊ ሰልፍ እዚህ ላይ ማምጣታችን ማላውነታችንና አንድነታችን ለመከበር ነው። በፍላጎታችን መከበር ነው። ለክልላችንና ለኢትዮጵያ ሁሉም አንድነት ለመከበር ዝግጁት ስለመሆኑ ነው እና በአንድ ክልላችን አንዳንድ ነገሮች ሲጠቀስ እንፈልገኝ ለዛሬ 20 ዓመት ወይም ለዛሬ 30 ዓመት በፊት በክልላችን ጦር ካምፕ ነበር። ነገር ግን ዛሬ ብዙ ነገሮች እየሰሩ ነው። በሰላማዊ ሰልፍ በሰላማዊ ልማት ሊመሆን በመንገድ ቢሆን ትምህርት ቤት ቢሆን በጤና ኤክስቴንሽኖች ቢሆን ብዙ ነገሮች እየሰሩ ነው። ስለዚህ ዛሬ በኢቢአርዲኤፍ ስርዓት ላይ ነው እዚህ ያመጣው። እንግዲህ በደርግ ስርዓት ላይ እናስመልሳለን የሚላቸው ሰዎች ቁም ነው እዚህ ላይ መጣው። በደርግ ስርዓትና በደርግ አምባገነን ላይ ባንዲራቸው የሚለምለማቸው ሰዎች ለመቃወም ነው እዚህ ላይ እንመጣለን። ስለዚህ እንደዚህ አይነቱ አንቀበለም። በሐሳብ ተባብነት ላይ ያለው ሰዎች ናቸው። አንቀበለም። እንደዚህ አይነቱ ሐሳብ ተባብ ላይ ያለው በደርግ ስርዓትና የደርግ አርማ ላይ አንቀበለም። አባታችንና እናታችንና የሀገራችን ያጠፋች ሰዎች ናቸው። እነዚህ አይነቱና የጥቅም ስርዓታችሁ ያለው ሰዎችን አንቀበልም። እነዚህ በደርግ አርማ ባንዲራ ላይ የሚወስዳቸው ሰዎች ላይ ራሳቸው ጥቅም ላይ ነው እንጂ ለኢትዮጵያ ደህና ቦታ ይደረስ የሚል ሰዎች አይደለንም። ስለዚህ በሰዎች በጥቅም ላይ ያለው ሰዎች አንቀበልም። በቲቢኤልኤፍ ስርዓት ላይ ነው የምንቀበለው። እኛ ያደገው እሱ ነው። እኛ የምናውቀው እሱ ነው። የምንከበረው እሱ ነው። በደርግ ስርዓት በሀገራችን ላይ ማንም ከእንግዲህ በኋላ አይመለስም። በአቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ስርዓት መንግስትና በኢህአዴግ ስርዓት ላይ ነው እኛ የምንከበረው። አንድነታችን እነሱ ናቸው። ልማታችን እነሱ ናቸው። መንገድ የምንሰራቸው እነሱ ናቸው። ህንፃ የምንሰራቸው እነሱ ናቸው። ጤና የሰራቸው እነሱ ናቸው። ስለዚህ ለሁላችን ይሄን ስርዓት ላይ ለመከበር ዝግጁ ስለሆነን ዛሬም ነገም እናስከብራለን። ጠላችሁም ወዳችሁም ይሄን ነገር ለማስረጋገጥ ዝግጁ ስለሆነን እዚህ ላይ የመጣን። ስለዚህ መልካም ኢትዮጵያ፣ መልካም አንድነት ለሁላችን ለዛሬም ነገም ዝግጁና ተስፋ እንደምንቆርጥ ዝግጁ ነን። እንግዲህ ችግር ቢመጣም እናስታጥቃለን፣ ሀገራችን እናስደግፋለን። ከኢህአዴግ ጎን ነን። በኃይለ ሥላሴ ስርዓት ላይ አንቀበልም፣ ወደ ኋላ አንመልሰንም። አባታችንና እናታችን የገደለው እንደዚህ ሐሳብ ያለው ሰዎች ማለት በጠባብ ነገር ነው። ማንም አይቀበልም። በክልላችን ይሁን በፌደሬሽን መንግስትም ይሁን ይሄን በስርዓት ላይ ማንም አይቀበልም። ስለዚህ ለሁሉም አንድነታችን ምንድነው? የኢትዮጵያ ህግና የኢትዮጵያን ፌደራሊዝም ህግ ለማስከበር ነው። በፌደሬሽን መከበር ነው። ለአንድነታችን መከበር ነው። ስለዚህ በደርግ ስርዓት፣ በኃይለ ሥላሴ ስርዓት፣ በአምባገነን ስርዓት ማንም አንቀበልም።
ودهلا عن ملي سنم ومتو أما تاريخ لا ينبرو تاريخ لا ورزي بزي أمتات بهاي عندي الزمن لا عن ملي سنم سلازي أهون لمات أجراتين لمات لا ينو بهين سالا ينو بابور منقل لا يسرونو هلم أجراتين يادقونو سلازي إندزي أيناتو تبا فاسابوش يالو سووش إن جنبوت سبات نونك إندزي نجاروش حساباتشو أنكبرم إندزي أينات لما تماغر الله زاري أي ساكم جنبوت سبات يقدم جنبوت سبات يقدم إثيوبيا عندنا يكبر إثيوبيا سراد يكبر إثيوبيا سراد يكبر بفدريشن الله يكبر يهديك إسرائيل الله يكبر እነዚህ በጣም አመሰግናለሁ። አጨርሻለሁ። በእንግዲህ በኋላ ላይ ምን መልሰው ከበሩት የዛሬ የመጡት እዚህ ሰዎች በእንኳን ደህና መጣችሁ ይላለው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ያለን ዛሬ በመንግስት እንደዚህ የሚባሉት ምንድነው መንግስት ኃይለ ማርያም ለመቆም ነው ዛሬ እዚህ መጣን። እነሱ ባንዲራ እዚህ ያመጡት ዓላማው እንዲለበለቡት እኛ ደግሞ እንዲቆሙት ነው እንደዚህ ያመጣን። ሌላ ደግሞ ይኸው ግንቦት ሰባት ሚሎ ሌላ ነገር የለም። እነሱ ሚሎት በኢትዮጵያ እንዲፈተኑት ብቻ ነው የሚፈልጉት፣ ሌላ ነገር አይፈልጉም። ግን እኛ የሚፈልጉት ምንድነው? ኢትዮጵያ አንድነት ነው የምንፈልገው፣ አንድነት ነው የምንፈልጉት። ስለዚህ ልማት ቢሆን አስፋልት ቢሆን ሌላ ነገር ቢሆን ትምህርት ቢሆን አንድነት ነው የሚፈጥሩት ነው የሚፈልጉት። አይመለስም እንደሱ አይመለስም። በእነዚህ ሰዎቹ አይመለስም። በፕሮዳክሽንካ waxaan maanta isugu nimid dhammaanteen inaynu maartay ka soo horjeedno ururada argagixisada ee ka mid tahay Gimbot 7 Ubbo Al-Qushaash Oromo Unaag all of them ayaan isugu nimid. waxaan u sheegaynaa groupkan oo saldhigoodu yahay Washington ama Mareykanka inay maartay aynan qaadaynin maanta waxba oo Ethiopia ay strong noqonayso kana mid noqotay dawladaha maartay dhaqaalahoodu xawliga ku socdo ay ka mid noqotay aynan maartay dib u noqonaynin. Ethiopia dib ugu noqon mayso dark days ay soo dhaaftay maalmihii madooba ay ka soo gudubtay. waxay u socotaa forward bright future bay u socotaa. waana taageeraynaa annagana difaacana Ethiopia. waxa weeyaan caburiskiina lagu hayay ay dergiga iyo muxuu ahaa amxaaran lagu hayeen waa laga gudbay. waxa weeyaan they have to come to the reality. that time is gone. yeah mugdig is over. we go to the bright future. so yeah federalism is works in America, it works in France, it works in a lot of countries. thank you very much. in aanu ka banaan baxno Gimbot 7 iyo Unaag oo mataqaana ururo doonaya argixisnimo oo isugu aan Ethiopia maanta waa federalismka ninka aan rabin ee aan isagu qaadanaynin annagu ma support garaynayno. Gimbot 7 iyo inay soo noqdaan nidaamkii dargiga ahaa ee maxaan ku dhahay caruurta iyo haweenkii dadka leynayay marna ma ogolaanayno. Ethiopia maanta waa federal, marka federalkana waxa weeye mataqaana way maxaan ku dhahay waa laga gudbay. waxaanu leenahay Gimbot iyo Unaag waxa idin yaala meeshan ma jiro. Ethiopia federal way federalismka ayaan rabnaa. waxa kale oo aan leeyahay nimanka Mareykanka jooga ama Ingiriiska jooga ee iyagu doonaya mataqaana inay dadka gumaysi ku soo celiyaan Ethiopia way ka baxday. waxaanu soo dhaweynaynaa nidaamka mataqaana federalismka ee dimuqraadiyadda leh. waxaanu ka soo horjeednaa wax kasta oo ka hor imaanaya dimuqraadiyadda iyo nidaamka federalismka. waxaan leenahay Gimbot down baan leenahay 7 iyo Unaag. waxaan halka ka salaamayaa dhammaan dadweynaha maanta iskugu yimiday arrintan u soo banaan baxay ay xanuujisay iskuna dhibay wadaniinta marka hore waxaan idin leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. horeynu u soconaynaa waxaynu maanta ka soo horjeednaa oo inuu soo banaan baxnay taliskii macangaga ahaa ee guumaysiga ahaa oo maaragtay aynu maaragtay dhacay oo waqtigiisii dhammaaday oo doonaya inuu soo tooso ma soo toosisid baan leeyahay. markii lagu gowracay ma dhaweyn, markii kabaha lagu geliyay ma dhaweyn, markii aad maaragtay aad dhaqaajisay ma dhaweyn, mana soo noqonaysid. waxaan leeyahay hariyoonin riyo looma baahna. annagu maanta runtii baan haynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan halka ka salaamayaa dhammaan dadweynaha maanta iskugu yimiday
arrintan u soo bannaanbaxay ay xanuujisay iskuna dhibay waddaniinta ah marka hore waxaan idin leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin horeynu u soconaynaa waxaynu maanta ka soo horjeednaa aynu u soo bannaanbaxnay taliskii macangaga ahaa ee guumaysiga ahaa oo maaragtay aynu maaragtay dhacay oo wakhtigiisii dhammaaday oo doonaya inuu soo tooso ma soo toosisid baan leeyahay markii lagu gowracay ma dhowayn markii kabaha lagu geliyey ma dhowayn markii aad maaragtay aad dhaqaajisay ma dhowayn mana soo noqonaysid waxaan leeyahay hariyoonin riyo looma baahna annagu maanta runtii baanu haynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed axmed abwaan cabdiraxmaan waxaan aad iyo aad u salaamahayaa abwaanka jaaliyadda ama DSI waxaan aad iyo aad u salaamahayaa dadweynaha ka soo qayb galay maanta mudaharaadkan taageerada ee dawladdeena federaalka Itoobiya aanu ku taageerayno ee aanu kaga soo horjeedno kooxaha yararka ee soo calaamnaqsaday gumaysigii iyo rajcigii xumaa ee dhargigii soo calaamnaqsaday ma imanaysaan mana soo noqonaysaan baanu leenahay runtii dawladda federaalka iyo takiilalka iyo madaxweynaheena cabdi maxamed cumar iyo prime ministerkuba ha noolaadeen baan leenahay noolaada ha noolaadeen بسم الله الرحمن الرحيم سوق يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waxa lima shibe waxaan maanta u taaganahay oo u soo banaan baxnay Gibbood 7 iyo onag dad dhirgigii hore ee dhacay ee dhigmiiratada ahaa ee maartay waawayaashii dilay ee nolosha noo diidanay dhiigayaga cabbi jiray ma soo noqonayo ma ogolin never wadadii dambana kuma noqonayno wadadii hore waa laga soo tagay waxaan leeyahay hore loo soconayaa federaalka Itoobiya horey buu maray horey buu soconayaa hambal yaan leeyahay our rights and we are against all the we are against Gimbood 7 and Onag. We are not accepting anymore. Dergi will never come back. Don't dream, guys. We will never accept anti-democratic people. We support Ethiopian Somali people. We support federalism. We are happy with federalism. Dergi will the dark days will never come back to disturb us, and we live peaceful today. We will never accept. Assalamu alaikum. Waxa maanta sharaf noo ah inaan jaaliyadda UK aanu halkan isugu nimaadno annagoo ka dhidhiyayna ururada mucaaradka ee raba inay Itoobiya dib ugu celiyaan halkii awal looga talin jiray hal qowmiyadood iyo hal af iyo hal dhaqan arrintaasi way dhamaatay dib loogu noqon maayo qowmiyad walba waxay heshay xuquuqdoodii iyo xaqeedii inay afkeeda diinteeda iyo dhaqankeeda isku maamulaan dawladda federaalka prime ministerka iyo xukuumaddiisa waan taageersanahay xukuumadda deegaanka Garuudaynka ka yahay madaxweynaha deegaanka Cabdi Maxamuud Cumar waanu taageersanahay dhargiga iyo wixii la mid ah hadaan waxaan ku soo wareejinayaa Jamaal Qaali السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينها ومدة صومالية إثيوبيا هنوراضو عبد محمد عمر هنوراضو سو جودهان من نبضة ومدة إثيوبيا هنوراضو وحلا عليه وحي كسور شد هدعو من نبضة إثيوبيا وحي كسور شد هدعان هدنتان هلا وايو محاجر هذين waxaan leenahay aabayaashana way dhinteen adeeradii way dhinteen awooyada way dhinteen gumays baa laayay waxaan laayay Gimbood 7 waxaan laayay dhargigii boqortooyada xarisaase ma soo noqonayso ma soo noqonayaan waxaan u darbanahay diyaar u nahay annagoo furiyayna aragtidii madaxweynaha naga Cabdi Maxamed Cumar ee ahayd waxa lagu wada joogaa dastuur midnimadu ha noolaato dastuur baa lagu wada joogaa dastuurka cidii ka soo horjeeda ha dhacaan midnimada Itoobiya ha noolaato waxaan ugu baaqaynaa fariin annagoo ka wakiila jaaliyadda Soomaaliyeed ee Itoobiya ee UK fariin baan diraynaa hal fariin baan diraynaa Soomaha midnimadu ha noolaato cidii diida ha dhacdo midaka warqayniyada ha dhacdo midnimadiidku ha dhaco horumardiidku ha dhaco ubba ha dhacdo Gimbood 7 ha dhacdo dargigii maxaa taahdeen ninkista xayla maryam maxaa taahdeen ninkista soo noqonaya ninkista soo noqonaya
عبد محمد عمر هنورادو من نمد إثيوبيا هنورادو السلام عليكم هذا محمود بيه واس مسؤول جديد معنا ومعنا فرحان ومعنا ننهي أنا هاي نمون ثمن محن أحمد ملحويناها عند محمود عمر نولدنا منها محن أحمد نولدنا فدرات محن أحمد إله الدم وحين نيافه الدم إله الدم إله بعرضنا الدم إله بابي إله وحين النعم بابي فدرات الدم إذا من نمر ثمن محن أحمد عند محمود عمر محن أحمد نولدنا الدم محن أحمد أنا يا تهنا آيهنا إله نوتنا آية دولتنا نياننا فمالنا الجميع محن أحمد آية دولتنا نياننا فمالنا محن أحمد نون aanu kaga soo horjeedno kooxaha mucaaradka ah ee gabood 7 unug oromo nabadiidka iyo inta la halmaashaba waxaan leenahay Ethiopia waa federalism kan qaadanay qofkii ka soo horjeeda federalismka waan diidnaan leenahay dargigii ma rabno never come back dargi baan leenahay ma soo noqonayso midnimada Ethiopia waa waxaan nahay dalad aanu harsanayno oo ay hoos joogaan dhammaan 9 gobol ama 9 kilil aad ayaan uga soo banaanbaxaynaa waxaan halkan ooga hambalyeynaya dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia oo ugu horeeya garwadeenka ka yahay madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar kabinetkiisa wasiirada iyo dhammaan new booliska ciidamada xuduudda weyna ha noolaadaan raxiim magacaygu waa Khadra Bindir Sawire maanta waxaan wada banaanbaxaynaa waxaan London anagoo ka soo horjeedna ragga ka qaldanay wataan dargigii inta la hadmaasho la socota Board 7 waxaan leenahay waqtigii la isku meeysanayay ma hore gumaysi looga soo dhargay waana laga gudbay maalmii madoobaan ilaahay baa naga soo qortay alxamdulilaahi rabbil caalamiin dadka raba inay soo noqdaan ama ay wadanka ka taliyaan ay qabsadaan markii dadkii ay laayeen baaba loo haystaa dadkii ay gumaadeen waqtoodiiba may bixiyeen idin hor jooga ilaa xisaabtami doona marka riyoonina baan isleeyahay dawladda federaalkana waxaan leeyahay guul baan u rajaynayaa dawladda deegaanka Soomaalida guul baan u rajaynayaa shacabka Itoobiya oo dhan baan salaamayaa 9 gobol iyo labada ismaamul magaalada salaamayaa dawladdeena sharafta la salaamayaa dhammaan madaxda sharafta oo dhan baan salaamayaa iyagoo isku duuban shacabka dawladda deegaanka Soomaalida salaamayaa hambaliyaan idin leeyahay cadowgana iska ilaaliya iska jira gacmaha is qabsada salaam calaykum oo xaqiiqada ka sheegno runta ka jirta dawlad deegaanka iyo federaalka dawladdeena federaalka aynu ka mid nahay waxaan maanta ka soo qayb galnay balaanbax ballaaran oo looga soo horjeedo ururada nabadiidka waxaana ma dadkii ka soo qayb galay oo kamid DDSI gabdhihii ka soo qayb galay ayaa shucuurtooda ka muujinaya halkan Sayid Cabdiraxmaan ku soo dhawow shucuurtaada noo sheeg iyo maanta banaanbax ka soo qayb gashay ku saabsan bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Sayid Cabdiraxmaan Macallin waxaan u dhashay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya tada iyo kala goynta Itoobiya federaalka Itoobiya in la kala gooyo ma raba fiicanahay ma jirto Itoobiya way siman tahay waqtigu isbedelay dawladdan ka fiicanna ma jirto waxaan leenahay dadka fikirka khaldan qabaay dib ay isku noqdaan soo raacaan dariiqa saxda ah ee runta ah ee xaqiiqdu ku dhisan tahay horumarka maanta Itoobiya ka jira hore uma soo marin waxaan jecelahay horumarkaas inuu sii socdo oo uu guuleysto oo dhammaan shucuubaha kala duwan ee Itoobiya si isku mid ah oo siman uga faa'iideystaan dimuqraadiyadda maanta Itoobiya ka hana qaaday abadiyan inama soo marin anigoo gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda UK waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa hanaanka suuban ee heer federaal iyo dawlad wanaagga ka jira
dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee uu hogaaminayo Cabdi Maxamuud Cumar waxaan leeyahay horumarka iyo wanaagga iyo maamulka suuban halka ka wada intaas aan kusoo gabagabeynaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقاعي قدول ظاهر بالله يدهدا halkan waxa ka salaamaya madaxweynaha Maxamed Cabdi Cumar ya iyo madaxda kale ku xigta ayaan ka salaamaya hadalka maanta ay koow hadalka maaqa marka waan idin salaamaya dawladda ka soo horjeedana ma rabno ana dayso dhargi ma rabno waan ka soo horjeedna maantana waxaan halkan isugu nimid dhargi nacayb السلام عليكم ورحمة waxa weeye maanta waxaan isugu nimid mudaharaad laxaad leh oo aan kaga soo horjeedno dhargiga iyo dadka raba mar labaad inay gumaysigii dib u soo celiyaan waxaanu salaan halkan u diraynaa dawladda federaalka Itoobiya prime ministerka ra'iisul baarlamaanka waxaanu kaloo salaamaynaa dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo hoggaankeeda suuban Cabdi Maxamuud Cumar iyo kabinetkiisa halkan shucuubtii Soomaaliyeed ee dawladda deegaanka ayaa isugu timid iyagoo maanta taageersan horumarka xuquuqda historiga ay maanta heleen kamana laabanayaan wayna difaacanayaan xuquuqdooda dhammaan ahaan qowmiyadaha Itoobiya shucuubta Itoobiya salaam baan u diraynaa kaliya laaba waxaanu leenahay ilaashada dastuurkiina iyo xuquuqdiina idiin soo noqotay kuwa raba inay idinka xuquuqda idin diidaana ka hor imaado diida farmaasantii magaalada London waxaanu ka soo horjeednaa gumaystii madooba ayaan ka soo horjeednaa waxaan leenahay unaag gumbood 7 ubo iyo wixii la halmaalay ee ka soo horjeeda midnimada Itoobiya federaalism ku hadhacaan maalintii madoobeedna naguma soo noqonayso mar dambe iyuna ku riyoon door cabay riyoodeen rag raba inay soo noqdaan ee doonayeen ku soo noqdaan gabdhaha jaaliyada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن ما أنت هالكن يسقون نمت دمانتين عدنا هاي دولة دجان كسومالي دا إثيوبيا هنا إنه ما أنت كوبنا بحنا معارض كأما ضد كهر إيمانا يا وناجينا يا نلاشينا يا نفتنا ضد كهر إيمانا يا وحن لا هاي جبوت 7 داون وحن لا هاي جبوت 7 داون وحن لا هاي درجي وهدعو wadanka adduunku uu kala tagay ilbaxnimo la gaaray maalintii la isku meeysan jiray lama joogo marka soo luguyn aan leeyahay yayna soo luguyn بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زارة إزية تسبسبنو زارة إزية تسبسبنو አንድነታችን ኢትዮጵያዊ መሆናችን እና ኢትዮጵያ አንድነት መሆናችን እንፈልጋለን እኛ ኢትዮጵያን ልትበላሽ አንፈልግም ሀገራችን እንድትበላሽ አንፈልግም አንድነታችን አንድ ፌደራል አንድ መንግስት ያው 8 መንግስት ለየቋንቋው ለየብቻው ለየሃይማኖቱ ተቀብለናል እና አንፈልግም ሁለተኛ ጊዜ ኢትዮጵያ የሚያበላሽ ሰው አንፈልግም ሀገራችን አንድነት መሆኑን እንፈልጋለን በኃይል አመሰግናለሁ ሀገሬን በኃይል እወዳለሁ ሀገሬን በጣም አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት በጣም አመሰግናለሁ አቶ አብዲ ዑመር የሶማሌ ክልል በጣም አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ አንድነት መሆኗ ሰላም መኖር እንፈልጋለን ኢትዮጵያ እንድትበላሽ አንፈልግም አቆርቃጃ ባለጌ የሆነ ኢትዮጵያዊ ህዝብ ማይፈልግ ሰላም ይውደቁ ኢንሻአላህ አንፈልግም بسم الله الرحمن الرحيم أنا magacaygu yahay deeqa caydid cabdullaahi waxaan halkan maanta isugu soo banaan baxnay oo aan ka soo horjeednaa onaag iyo dargigii waxaan halkan ugu soo banaan baxnay السلام عليكم waxaan maanta ugu soo banaan baxnay oo aan ka soo horjeednaa onaag iyo dargiga iyo fikradaha ciriiriga waxa wata we will never go back to the dark days aan waxaan u sheegayaa onaagtana yoo dubiyo oftan qana indifne ajiti jawharin dubisa jawhar ajiti si dhufani Minnesota qaysa si dhufaniti akana sifuudan harkataka يا ilmaha dhasalayo intaan ajiti si dhufna wal arkina biya qaysa yo feetaniis waxaan halkan
rabnaa maanta inaanu maanta ka muujinno midnimadayada iyo inaanu cadowga ka soo horjeedno Itoobiya ka soo horjeeda federalismka Itoobiya magacayga waxa la yiraahdaa Maxamuud Ismaaciil Cawaale waxaan dhammaan هلو magacayga waxa la yiraahdaa Maxamuud Ismaaciil Cawaale walaalayaal waxaynu ka dhareegsanahay silicii balanbalkii hoogii iyo kadeedkii uu inabaday talisyadii dargiga iyo xayli salaase waxaynu ognahay in ay dad badan gumaadeen oo gam ka siiyeen kiiba maanta Gumbood 7 ay doonayaan inay soo celiyaan marka waxaanu leenahay ma aqbalayno damac rasaasa ayaanu kala hortagaynaa waxaan u huraynaa naf iyo maalba waan u huraynaa waxaan leenahay waxaan doonayaa halkan inaan ka salaamo madaxweynaha deegaanka Soomaalida ra'iisul wasaare السلام عليكم ورحمة الله دمان dadka isku soo baxay banaanbaxan waan salaamayaa salaan kadib waxaan ka soo horjeednaa hadaan nahay dhamaan jaaliyada halkan isugu timid fadqalalaha iyo dhibaatada ka socoto nimanka wada ayaan ka soo horjeednaa dhamaan wixii nabadda ka soo horjeeda ayaan ka soo horjeednaa waxa kale oo ka soo horjeednaa waan ognahay waa log yahay adduunka maanta waa ka dhamaaday waxa la yiraahdaa dagaal afka ayaa laga wada hadlaa marka waan ka soo horjeednaa waxa la wixii dhibaato wada horumarka iyo horumarka ka jir deegaanka waxa ka soo horjeeda waan ka soo horjeednaa sidaa daraadeed horumar baa jira adduunka marka waxa salaamayaa dhamaan jaaliyada halkan isugu timid wabillaah bismillahir rahmaanir rahiim magacayga wasooda bismillahir rahmaanir rahiim magacayga wasooda Cabdiraxmaan Macallin وأد بندي السلام يا مرت شرفت الله هالكان محمد رئيس قلت مدي مظاهرات كأنه كم وشنا إنه دولة ضيّد شرفت بدن فايدر هالك أنا نكسر هرشنا وح الله وحي محمد رئيس بعتك وذا معارض كوه وحنو تاجر سنة هاي فايدر هالك وذا شركة وناقة شرفت إثيوبيا إن أنا محمد رئيس كم بدهانه نبض يدا إن السعطة محمد رضا وح الله وحي معارض نجوه هذا هدعو درجي هدعو أنا هدعو دي بسعد كإثيوبيا هدعو أوبا هدعو وح الله وحي نبض جريدة كسر كده مرة بنا هدعو درجي أو يا شيء دلي مرة بنا والله ولا الكي عرض كهذا الشيء درجي دشيء دل دشيء ما دورينا درجي مرة بنا نبض جريدة وناك يجا إلهي تام كياله عبد محمد عمر كر الله كياله شر أشوك دولة شرفت بدن وحصو عليا مرة بنا درجي دم مرة بنا واهر يدعض يا هدعض أنا هدعض نبض جريدة هوارته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته anigoo Cabdulqaadir Afi Maxamed halka maanta waxaan iskugu nimid in aynu protest iyo mudaharaad inaynu ku sameeyno dadka midnimada iyo federationka Ethiopia diidan ee Gimbood 7 iyo wax la mid ah ee yihiin hadaan ma doonayno inay dib noogu soo celiyaan qaabkii systemkii dargiga waxaanu soo dhaweynaynaa systemka maanta jira ee xuquuqdayadii iyo muxuu ahaa horumarkayagii intaba noo horsayday ee uu hormoodka si gaar ahaaneed ugu yahay xisbiga dimuqraadiga Soomaalida Ethiopia ee uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka uu gudoominayo Maxamed Rashiid oo una mas'uul ka sii yahay maamulka dawladnimo ismaamulka Soomaalida madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ha jiro joogaanu leenahay waxaanu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعيقو وحاشر ayaan kamid ahay maanta waxaanu isugu nimid annagoo community London deganayd ayaanu halkan isugu nimid waxaanu rabnaa inaanu codkayaga ku cadeyno oo si cad u sheegno
in aanan ogolayn in wax qalalaasa maanta ayna Itoobiya ayna ka dhici karin Itoobiya taariikhday soo martay waynu wada ogeyn anigu waxaan ku dhashay magaalada la yiraahdo Dhagaxbuur siday ahayd waa la garanayaa laba iridood baa laga soo gali jiray oo kontarool la yaalo meel walba meel kasta magaalo kasta noocaas ay ahayd ama way ka sii darayd maanta xornimadka iyo ismaamulka iyo federalismka Itoobiya ka jira waa wax cad oo la wada arko wax qarsoon ma aha markay jidkii hore ee foosha xumaa inaan dib ugu noqono diyaar uma nihin taasaanu codkayaga ku cadaynaynaa oo halkan maanta isugu nimid thank you okay marka assalaamu calaykum assalaamantiin waxaan xaggan ka salaamayaa dhammaan xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya gaar ahaan uu horkacayo Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynaha dawladdeegaanka Soomaalida libaaxa gayiga darbigu ha dhacaan Itoobiya ha noolaato Itoobiya salaam tunur Itoobiya salaam tunur darbigu ha dhacaan horay baan ku qadaleynaa horay baan ku qadaleynaa waxaanu taageeraynaa horumarka nabadgelyada harmoniga wada noolaanshaha isla jirka Itoobiya isku duubnaanshaheedaanu la jirnaa waxaan si khaas ah aanu uga soo horjeednaa dadka maagan in Itoobiya kala faquuqaan kala qaybiyaan xasiloonida ay dardaraan centralize ay ka dhigaan powerka ma doonayno waxaanu taageeraynaa federalismka halka waxaan ugu nimaadnay inaanu nabadda shaacino horumarka inay dadka qurbaha joogaan ay xaqiijiyaan inay la jiraan mataqaanaa dawladooda maanta Itoobiya waxay ku tiigsatay dawladaha East Africa ugu mataqaanaa financialka iyo economigeedu kor ugu kacay marka waxaan taageeraynaa horumarkaas dadka naga Itoobiya meel kasta ay ku nool yihiin waxaanu leenahay in unity gu socoto Cabdi Maxamuud Cumar Cimrigiis yartay ha u dheeraada dhahay عيارسينه هذا انت انا كشانتيا يرتاي كان ويدا غارديغا يا ميكا ويدا صباحي حق دانتده تغادو نايا علسكيسه عود كبدار كيرا اوي الكاي يجون الكاي يجون صالح
قرحان قبري دهار جنيو قرحي